ii dhegayso si wacan ka yeel cudurkani midkii aad ugu dhowaan lahayd allaah ka yeel sababtii aad ugu laaban lahayd salaadda iyo xuska allaah ka yeel sababtii aad ku cafin lahayd kuwii ku dulmiyey soo xasuuso nimcooyinkuu allaah kugu manaystay waxaad bixi jirtay adigoo qoslaya misana ciyaaraya laabtaaduna ay kuu deggan tahay waxaad ka fikiri jirtay sidii aad maal u samaysan lahayd balse ha ilaabin naxariista rabbi waayo markaa waxaad milkinaysay waxa ugu muhiimsan dunida kuwaasoo ah caafimaadka iyo laabtaadoo dareemaysa xasilooni sideed noqotay hadda waxaad noqotay mid u xiisa asxaab uu jeclaa kuwaasi oo uusan booqan muddo kuwaasoo uusan xitaa ku salaami jirin gacanta inuu xabadka gelsho mooye balse maanta intaasiba waxay noqdeen kuwo mamnuuc ah tani waa fursaddaadii aad allaah ugu laaban lahayd walaal idhegayso walaalkayow cudurkani inta badan waxaa loo helayaa xal balse adiga nafsaddaada ma u heshay xal adigu ma fahantay cashirka fariintayda walaal adiga ayay kugu socotaa ee u laabo allaah cudurkani waa fariin ka timid xagga allaah ee aynu u laabanno allaah inagoo towbad keennay oo aynu weyddiisanno dembidhaaf iyo raalli ahaanshaha allaah allaahumma innii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaami wa min sayi'i alasqaam allow waxaan kaa magangelay baraska waalida juudaanka iyo xanuunnada kuwa ugu daran allah subxaanahu wa tacaala muusan soo dejin cudur ilaa wuxuu la soo dejiyey daawadeedana maanta ma ahan waxaan ka ahayn towbad ka ahaatay niyadda dhabtii waxaa badatay macaasida ee allow noo dembi dhaaf yaa allaah naxariistaadana rabbow nagu manayso aamiin aamiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.